ayaan agaasimaha wasaaradda caafimaadka qaybta asfalaadka Dr. Jamiil iyo doctorada kale ee la socda wasaaradda caafimaadka ka socota. waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa inay nagala soo qayb galeen ugaaska oo asna maanta marti sharafka nooga mid ah. waxaan kusoo dhaweynayaa marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay dhammaan ee waqtigooda qaaliga u huray aqbalaan xafladan lagu soo gabagabeynayay qalimadii mutadawacnimada ah ee la sameeyey Kalkaal Specialty Hospital. iyo waxaan aad ugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah ee dhammaan Soomaalida idil ka faa'iideysatay. ma la qiyaasi karo runtii qofka farawan dhibaatada uu qabo. runtii farxad weyn ay u tahay dhammaan dadkii ka faa'iideystay, waalidiintoodii, qaraabadoodii iyo saaxiibadoodii. qalinkani wuxuu qaadanaa marka ugu badato qofka la qalaayo wax ka yar hal saac. wax ka yar hal saac oo qofkaas dhibana wuxuu u ahaa 20 sano iyo ka badan. hal saac ma qaadanayo qalinka noocaan, laakiin wuxuu u baahan yahay aqoon iyo qalab iyo space wax laga shaqeeyo u baahan yahay. ani waxaan u soo jeeday dhammaan qalimadan intooda badan markii la sameynayay ma aha oo kali ah in yani dad wax loo qabtay. sidoo kale isbitaalku wuxuu tarageeyay ama wax lagu baray dad badan oo dhakhaatiir ah oo qalimo noocan ka faa'iideysanaya. waxyaalaha laga faa'iiday dhinaca kale ayaa faa'iido wax weyn oo aan warkaa. hadday noqon lahayd qalimada dibadda loo aadi jiray, hadday noqon lahayd qalimada noocaan ah, isku soo duub yani wuxuu naga mudayaa isbitaalkan si bulsho ahaan ah, si yani dowlad ahaan ah in ay ka wada qayb qaataan isbitaalkaas si loo abaalmarin lahaa. Kalkaal Hospital wuxuu daahfuray oo markhaati ka ahay arrin aad iyo aad u weyneyd oo caafimaad ahaan bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd oo dhaqaale badan ku baxayeen ayuu wuxuu suurto geliyay samafal ahaan iyo dhimrin ahaanba inuu hirgeliyo. anigu kaygaas Maxamed Bashir ahaan waxaan ka markhaati kacayaa gabadhan awow u ahay oo miyigaas galmudug ku dhalatay, hooyadeedna 7 caruur oo hore ay ka dhinteen ayaa gabadh dhanxanaga ilaa faruuraha isu duleesha ayaa u dhalatay. maqleen kalkaal oo naada bixinaya oo ilaahay dartii dadkii ugu yeedhaya waan keenay waan saxay asbuucii hore saxay. gabadha waxaan la yaabay dhanxanag ilaa iyo dalqada jeexan sidee baa loo toli. waanu aad ula yaaban nus saace iyo saacad adu wax dhiman ayaa gabadha lagu daaweeyay. gabadha maanta quruxdeeda iyo qiimaheeda waa yaabaysa. kuwa badan baa la mid ah oo Soomaaliyeed. waxaan leenahay waxay inoo tahay annaga haddii aan nahay wasaaradda caafimaadka oo aan maanta magaceeda ku hadlaayo sharaf weyn iyo farxad ayay inoo tahay inaan idinkala soo qayb qaadano. ugu yaraan inaan dhiirigelin idinkala qayb qaadano dadka qaliimada loo sameeyey ee loo soo celiyey dhoolla caddeyntoodii oo ah aniga markii labaad ee aan markhaati ka noqdo ayaan imaado. runtii waa hawl mudan tahay dadkii ugu horreeyey ay aada u qareen ee uga sheekeeyeen. waxaa laga sheekeeyey qisooyinka iyo halmaan hadal kuma jiray. ugaaskana waa salaamaya oo runtii odayaasha dhaqanka ah sheekooda inooga sheekeeyey iyo kuwo kaloo runtii la mid ah. waxa waaye adeegyada heerka 3aad ee aan wadankeena laga helin waaye. waxaan aada u dhiirigelinayaa hal abuurka ay la imaadeen isbitaalka Kalkaal, sidoo kale daryeelka goonida ay u fidiyeen dadka ah mararka qaarkood ka rajo beelay in ay soo celiyaan structure-ka ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhaliyey ee la sixi karo ee qalinka noocaas ee fudud u baahan. runtii aad iyo aad ayaan u dhiirigelinaynaa hal abuurka noocaas ah. waxa weeye runtii adeeg aan wadankeena laga heli jirin, dadkeena safar dheer u geli jireen, u dhigtoon jireen, kharash badan uga bixi jiray wadanka loogu keeno, loo fuliyo misana loogu daro in si bilaash ah oo lacag la-aan ah loogu sameeyo
waa wax ammaan iyo bogaadin iyo dhiirigelin iyo taageerid iyo la garab istaagay intaba mudan. waxaan ku ammaanayaa isbitaalka Kalkaal inuu iska ka taxadar ilaalin standardka iyo habka tayada adeega uu bixinayo runtii oo ayadana ah mid iyadana u baahan in la dhiirigeliyo mudnaana la siiyo. dadkeena Soomaaliyeed adeega caafimaadka leh oo tayada leh oo ay maxaa la dhahaa ay u doonan lahaayeen wadamada dibadda in wadankooda uu laga helo wax aad ummadda Soomaaliyeed ee ugu tabarta liidata ee ugu baahida badan aad kaga saartid kartidaada aqoontaada iyo niyad wanaagaaga ma sahlana waxa aan dalka hore loogu samayn marka aad ku dhaqaaqdid adoon waxba ogeyn inaad heli doontid iyo kale aad samaysid kuna guuleysatid. Kalkaal waxay muujiyeen niyad wanaag, karti, dadaal, asluub, waxqabad la taaban karo oo la arki karo. aad baan runtii ugu mahad celinayaa waana ku ammaanayaa waxaa wasaaradda caafimaadka. So I'd like to say thank you for giving me this opportunity to say something small. I'll be brief. I would like to express my sincere gratitude to the Kalkaal Hospital Foundation for really having the faith in Belarisu Foundation for us to partner in providing this service to the wonderful people of Somalia. Now, as you may be well aware, this is our second mission. Our first mission or partnership was in March this year, and from my perspective, it was a great success. Now, this second mission, I'm very proud to say, has been even a greater success. I think just about 1 hour ago, we were able to actually reach 100 patients, treatment of 100 patients, which had always been our target from the first time. We did not reach it at the first time, but I'm very proud to say that we have actually been able to help 100 patients from Somalia. Kalkaal ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa farxadu waa naxdin. haddaad naxdo maray ooyinka imaanaysa, haddaad farxadana maray ooyinka imaanaysa. anigu waxaan ka mid ahay waalidiinta dadka faruuranka farxad ima dhimaa farxad aan farxay 32 sano sidaas ahaay habeen walba marka igu hor yimaado waan nixi jiray waxaan ka nixi jiray si aan wax ugu qabto waan aqoon jiray iyo meel aan la aado iyo cid wax ka qabata habeenkii inta la tolay la soo bixiyay ee aan arkay dhakhtarkii aan ku laabtaan ee ninkaan wiilkii miya هذا إيري. حشي كلا سنيي أو ها خلي مجارية إلا بقول إلا وقفات طبعا نفذ ذي إن صور الناس جريه لسكت بريده قبل ما أعمق الله يسان لك كانوا إلا رأس عصير لارسكن بول يحفظ الله يسانهين مشيكو وحقو بالله كوني جولاي وحونا دماغي بريد إن شاء الله تمنك جولاي waxaan ka faa'iideystay 102 qofood waxaan filaynaa intaas in ka badan inaan ummad Soomaaliyeed u qabanno oo wax badan aan ku soo kordhino ma ahan waxaan yarka oo qayb ka ah in la yiraahdo 102 qofood wax weyn laga dhigo laakiin waxaan jeedinaa mashaariic ka waaweyn inaan qabanno ummadana ku soo celino legacy aan ka tagno. hay'adan oo Kalkaal Hospital Foundation waxay partner la samaysay hay'adda la yiraahdo Belarisu Foundation si mishinada iska kaashadaan waxaana barnaamijkan abaabulkeeda iyo qayb ka ahaa fiyeynteeda also isbitaalka oo door weyn ka qaatay maamul Karuur 55 sano jirtay maanta markaa fiirisana waxaad leedahay 55 sano waxaan soo doctor Abqaadir u sheegay Amin Ambulance waxal saaca inuu 55 sano qaato wax adag waay لكن الشخص وحده قبكرة ومدة نحوالنا بدلي كرا واحد بلان بدلي كرنا واحد بلان قبكرنا أنا سكت منه وحطنا